أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا ليال وحام مهضله إلهي تبارك وتعالى وحان جعله إنان هلكن وجهدي باق dadka leadershipka ah ee ummadda horjooga. leadershipkaas oo u kala baxa laba nooc: leadershipka fikirka iyo diinta iyo leadershipka maamulka ah. labadaaba waxaan jeclahay inaan baaq uga jeediyo halkan. leadershipkaas oo ah dadka ku nool bariga iyo geeska Afrika, oo aan uga jeedo bariga iyo geeska Afrika dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya amba sida loo yaqaano Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wadanka Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Ethiopia. waxaan jeclahay walaalayaal kelmadan oo salka ku haysa aayaddii quraanka ahayd ee nimika ka akhriyay halkan. aayaddaas oo ka mid ah suuratul baqara oo ilaahay uu kaga hadlayo subxaanahu wa tacaala qofka leadershipka ah, qofka maamulaha ah, qofka horjoogaha ah, qofka ummadda wax u taraya sifaadka iyo tilmaamaha laga rabo. walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi aayadda quraanka ah: ina allaha istafaahu calaykum wazaadahu bastatan fi lcilmi waاljismi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, ilaahay baa doortay jala wacalaa. allah subxaanahu wa tacaala iyaa inii doortay ninkan taaluut inuu inii noqdo hogaamiye. istafaahu waxay ka dhigan tahay dad buu kasoo dhex baxay, dad fara badan oo boqolaala iyuu kasoo dhex baxay. laakiin ilaahay wuxuu raaciyey wazaadahu, wuxuu ilaahay ku daray uu ninkaas siiyey bastatan ballaadh fi lcilmi, dhaka aqoonta ah, aqoon ballaadhan, waljismi iyo jidh ballaadhan oo caafimaad qaba yuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. waxa weeyaan walaalayaal, nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ah waxa uu ku yidhi: annaasu ka ibili mia, dadku waa sidii 100 halaad oo kale. 100 geela weya dadku, 100 halaad oo kale, 100 geela, 100 awr dhille iyaa la mid tahay. laa takaadu tajidu fiiha raaxila, waxaad sigaysaa buu rasuulku yihi, waxaad u dhowdahay inaad ka weydid hal quraate ood raratid. marka waxaa halkaa ku jira, marka laga hadlayo leadershipka islaamku, markuu ka hadlayo 3 arrimood baa ku jira xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam. xadiiska waxaa ku jira awalan, qofka leadershipka, dadka leadershipku way yar yihiin, waa 2% ilaa 3% bulshada weeyaan. leadershipku waa 2% ilaa 3% baan dhahnay. waa arrinta koobaad, qila way yar yihiin. xadiiska maxaa ku qoran? laa takaadu tajidu fiiha raaxila, waxaad sigaysaa inaad weydid mid quraate ood raratid. bini aadamku waa sidaa, waa in badan oo wax laga rarta aan lahayn. arrinta labaad ee xadiiska inoogu jirta waxa weeyaan walaalayaal, xadiiskan qaaliga ee qiimiga badan ee nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam, waxaa inoogu jira inuu qofka leadershipkii uunan ahayn qof dadku ay sharfaan, uu yahay qof dadku ay culays saaraan. walidaalika bay culummadeenu yidhaahdaan alqiyaadatu takliifun laa tashriifun. leadershipnimadu, hogaannimadu waxa weeyaan waa takliif, waa culays lagu saaro
ومسؤولية maaha sharafti sharaf kuma ziyaadayo waxaa kuu ziyaadaya culays lianna adduunkana waxaa tahay aksaruhum ximlan adaa ugu culays badan aakhirana waxaa tahay aksaruhum xisaaban adaana ugu xisaab badan marka arinta labaad ee xadiiska ku jira waa taa arinta saddexaad ee xadiiska inoogu jira waxa weeye qofku muxuu leadership ku noqdaa wuxuu ku noqdaa inuu ummadda ka xambaaro dhibaatooyinka ummadda dhibaatada haysato oo dhan si uu uga saaro ummadda waa inuu isagu noqdo ka xambaarsan walidaalika buu xadiisku yahay laa takaadu tajidu fiiha raaxila idan maadaama xadiiska nebigu sidaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam aayadda qur-aankuna ay sidaa sheegayso waxaan jeclahay inaan la hadlo laba qolo oo leadership ah labadan qolo ee leadershipkii waxa weeya walaalayaal waa leadershipka maskaxda iyo leadershipka maamulka waa laba isbuuxisa hadday kala tagaanna waa laba ummaddu kala tagooga ay ku dumaan walidaalika buu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay inay culummadu dhaxlaan ambiyada lianna runtay sheegaan xaqiiqaday soo dhoweeyaan madaxduna waxa weeyaan waa dadka ilaahay uu xisaabin doono imaamkee dadka hor jooga weeyaan labadani waa labada hogaamiye qaarna maskaxday dhisaan iyo qalbiga qaarna maamulka ayay sameeyaan qiyaadada fikriga markaan ka hadlayno markaan leenahay leadershipka maskaxdu laba u kala baxaa walaalayaal waa leadershipka maskaxda dhinaca diinta ka dhisa ee aayadaha qur-aanka xafidsan axaadiista nebiga yaqaana fahma dhaadhiciya dadka u dhoweeya tusa tilmaamo weeyaan waa qiyaada diiniya dhahda waa leadership xagga diinta ah waxaa jira leadership fikriya oon diinta aqoon laakiin cilmi kala leh oo yaqaana matalan cilmiga taariikhda cilmiga dhaqaalaha cilmiga siyaasadda cilmiga bulshada kuwaasna waxaa dhahdaa waa leadership fikriya waa ragga wax qoro weeyaan labadaa qolo waxaa lagu yaqaana waa leadershipkii fikriga ahayd leadershipka labaad waxa weeyaan waa leadershipka siyaasiyiinta iyakuna waxay u kala baxaan labay u kala baxaan leadership maamulkii dalka haya iminka soomaaliya iminka rag baa xakuma farmaajo xakuma jabuuti matalan madax bay leedahay xakuma etoobiya madax bay leedahay waxa weeyaan leadership baa jira maamulkii jooga iyo waxaa jira leadership isaguna mucaarad ku ah kuwaas marka labadaa qolana waxa weeyaan waa dhawaq iyo jawaab waxaan u dirana insha allahu tacaala kuwa maamulka jooga iyo kuwa mucaaradka aba inkastay jiraan qolo saddexaad oo dhexda joogto oo leadership ah mucaarad iyo muxaafid u dhexeeyo ah leadership fikriya siyaasiya ah idan ikhwaani fillah waxaan rabaa inaan si methodology u gallo waxaan ka hadlay horta leadershipka aan la hadlay waxay yihiin waxaan ku socdaa arrin labaad oo muhiim ah maxaan mawduucan uga hadlaynaa walaalayaal dhibaato weyn baa ina haysataa haddaan nahay dadka bariga afrika degan dhibaatada ina haysataa waxay u kala baxaysaa afar dhibaato kow horta waxaa ina haysataa dictator baa ina haysataa dhinaca cultureka saqaafiyan waana la adoonsaday gumays baan ku jirnaa maaha dhanka politicalka siyaasiyan ummadeenu waxaan jiraa saqaafiyan waa la gumaystay iyaa la gumaystay saddex qoloba wayna gumaysatay saqaafo ahaan odayaasha cultureka maamulka ku hayee qabaaisha xakume ee salaatiin la yidhaahdo waxaas oo dhani waxa ay kari laayihiin inay dadku ka hoos baxaan oo ay dowlad noqdaan waxay rabaan dadku inay reero u fadhiyaan qabaa'il inaas ka ahaana ilaa goorma 5,000 oo sano 4,000 oo sano 3,000 oo sano uman qabiil nahay inaan qabiilkii ka evoliyoono oon u tatawurno inaan dowlad noqono inaan aragti yeelano waan kari lanahay maxaa ina haysta waxaa ina haysta waxa loo yaqaano dictatoriya saqaafiya qolo labaad baa jirta oo saqaafadii una waxaa ina haysta dictatoriya saqaafiya oo dhinaca cultureka ah cultuurka ah oo ka imanaysa iyaduna dadka wax ku soo bartay wadanada reer galbeedka waxay aaminsan yihiin wixii ay ku soo barteen reer galbeedka inay ka soconayso afrika wadanada islaamka iyo carabta matalan qofka francophonka wuxuu aaminsan yahay tatawurkii evolutionkii faransiisku soo wixeeyey inaan anakuna aan samayno inaan ka duwanahay ma garanayo qofka anglo-saxonka ee wax ku soo bartay ingiriiska amba maraykan amba canada wuxuu rabaa inuu iyadii qaado uu geeyo geeska africa iyaduna ma soconayso waa in wax laga gooyo wax lagu daro waxaa jira kuwa wadanada carabta wax ku soo bartay masar sacuudiga khaliijka meesha doon suudaan ka yimaadaan waxay wadaan inay dhaqanadii carabta inoo soo xambaaraan bay wadaan oo ummadda soomaalida ummadda canfarta ummadda afrikaanka ay u keenaan iyaduna waxaa dhacaysa waa saqaafada dictatoriya saqaafiya arrinta labaad ee ina haysata waa maxay waa dictatoriyada la dhahdo dictatoriya diiniya na haysata matalan culummada islaamka qaarkood waxay ku dadaalaan dadka inay ra'yigooga qura u sheegaan matalan haddii laga hadlayo haddii xuquuqda naagaha laga hadlayo ra'yi buu kuu sheegay quraati aaraada jirto culummadu wada qabaan kuma sheegayo wuxuuna ku oranaya waa sidaa calayhi daliil daliilku taa buu la socdaa
kii kale wuxuu koranaya matalan haddaad heesaha weydiisid 13 qowl ilaa 11 qowl baa jira oo heesaha laga qabo kuma wada sheegayo inta xaaraanta inta xalaasha maxay xaaraan ku tahay maxay xalaal ku tahay adiladii ma wada keenayo xabadun buu ku sheegay heeso dhan waa xaraan okay hadda laga hadlo matalan naagaha ninkii hadda islaanta gabadh matalan Yurub joogta ama Mareykan joogta ama Kanada hadda islaanta odagay gal yahay maxay yeeli ma ka tagay odaygeed waxaa ka jira soo Ibn Qayyim sheegay dhowr iyo 10 qowl baa jira qowlkii la qaadanay midun buu ku sheegay waa dictatoriyad diiniya dadka waa inaad u bartid inta qowl ee la qaadan karo iyo qofka inaad siisid masaaxo xorriyada male dictatoriyada diiniga ana waa mushkilad weeyaan arinta saddexaad in haysato maxay walaalahay dictatoriyad tarbawiya haysato dictatoriyad dhinaca educationka amba educativeka dhinaca tarbiyada okay mujtamaca aan ku noolahay saddex qolaa jirta waalidku markuu gurigiisa joogo waa maxay waa dictator ciyaalku ma haystaanba wax la yiraahdo tarbiyad xora ilmaha uu kulama doodi karo xiwaar ma furi kartid ka aqal seexo bax buugaanta dhigo waa qof waxa la buuraysaa qof aan bila personality markuu adiga kaab wuxuu iskuulka tago macallin buu arkaya keligii wax sheega oo la dhageysto oo loo sheegin macallinkiina muxuu noqonayaa keligii ba jira uu ka baxaya jaamacadu tagaya jaamacadii waa meeshii wax lagu baadhay ma oranay wax soo baadha wuxuu leeyahay waa sida cilmigu dhaqaaluhu waa sida kelmadiisu u sheegaya hadduu wax kale macallin ardaygu keeno uu dhacaya iskoolka okay waxaan jecelahay horta war hogaamiye waa maxay kelmadda waxaan maqlaa leadership ba leadershipku ayo quraanku waa ka inoo sheegay nabiguna waa ka inoo sheegay culumada waaweyn adduunku maxay ka yiraahdeen leadershipka laba nin baa inoo soo qaadanaya nin caraba nuwaf kancaan la yiraahdo iyo nin reer galbeeda oo Landsberg la yiraahdo ninka carabkii wuxuu yiri markuu ka hadlayay qiyaada leadership nimada wuxuu yiri waxa weeyaan al-amalu ma'a al-akharin hada u fiirsada ragiinan hogaamiyaasha haday tahay maaratay taymkani xukuumaya Soomaaliya farmaajo hatta haday tahay dhibaatada imika Soomaaliland ka socota iyo isqabad ka socota haday tahay taymka xukuumada kuwa mucaaradka haday tahay jamhuuriyadda Djibouti kuwa xukuumada kuwa mucaaradka haday tahay Itoobiya inta waan la hadlaya maxay raada hogaamiye al-amalu ma'a al-akharin dadka in la shaqeeyo ko waa muhiima والتأثير فيهم لنا تأثيريه waxaad u sheegaysid ku taasiri si aad u xaqiijisid ahdaaf tawaaweyn ee doonaysid inaad gaadhid kaliya hadaf ma gaari kartid aniga on ba leadership kuma gaari kartid hadafkaaga okay laba kuma gaari kartid hadafkaaga dadka kaleeto waa inaa maartay fahmaan waxaan doonayo la تعمل معهم marka ninkan muxuu yiri العمل مع الآخرين والتأثير فيهم لتحقيق أهداف كبرى معينة marka waa inaad ka dhex shaqaysid ka dhex العمل في الآخرين أو مع الآخرين وين أوكي وحانو إيماننا Landsberg wuxuu yiri ninkan reer galbeedkii tana ka culus oo quraanka u dhow ninkan carabka waxa uga dhow quraanka ninkan Landsberg wuxuu yiri hogaamiyuhu waxa weeyaan leadership nimadu waxa weeye القدرة inaad karti u leedahay على خلق رؤية inaad abuuri kartid vision inaad vision abuuri kartid khalq dadku marka ay qoostaan uma baahna inaad sii qoosisid dadku marka ay rajo qabaan inaad ka cabsisid lama rabo vision u abuur meel dheer ko wal ilham dadkana gali jacayl ilham gali oo ruux ku abuur naf gali okay karti u yeela ru'ya iyo ilham waxa ajiiba tan kale wazakham kuna abuur dhaqdhaqaaq iyo buuq dadku waa inay xiimaan xiin weeyaan buuq zakhamku dadka marka saddexda qofka ku abuura iyo hogaamiye abuur okay markaad imika taariikhda ku noqono mesela Nelson Mandela zakham ku abuuray ru'yadu abuuray ilham ku abuuray Mahathir Gandhi marka ku noqotid Gandhi nikolonay marka mesela ku noqotid madaxweynihii maratay wadankani Malaysia Mahathir nikolonay khatarka saguna Maxamed Muhadir marka ku noqotid mesela Erbakan nikolonay dawladda Turkiga cusub sameeyay marka ku noqotid imatid Afrika xataa ragi mar soo maray ee dadka ku abuuray Tanzania kale iyo dadkii kiciyay marka ku noqotid waxa soo markaas ka dhaftid ee ku noqotid rasuulullah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam badal al-abtal muxuu sameeyay dadka fishi buu sameeyay adduunku dhabad hogaaminaysiin ilham buu galiyay ruux buu galiyay ummadda inay ka sareeyaan wax qaban karaan zakham buu abuuray dhaqdhaqaaq badan iyo abuuray hada huwa al-qaid hogaamiyuhu waa ka weeyaan amba mucaarad sheego amba muxaafid sheego amba sheekh diiniya sheego amba sheekh mufakkir siyaasi sheego waa ina waxa sameey kartid okay su'aal baan isweydiinaa ninka leadershipki halkuu ka soo qaatay quwadiisa dadku isweydiiyay ninka مثلا halkuu ka soo qaatay
mandela xoogiisa gandhi halkuu ka keenay matalan mahatir halkuu ka keenay halkuu erdogan ka soo qaadaa quwadiisa shicibka dhan ayuu la hadlay maalin telefoon wuxuu kala hadlay telefoon yar wuxuu yidhi ballanteenu waa dariiqyada way soo dhaceen kayf soo dhaceen maxay u aqbalayeen dadku markuu mubaarak soo dhanac lahaa markii uu maaragtay qadaafi hadlayay uu lahaa dadku aqbali lahaayeen maxay kana u aqbaleen waa su-aal muhiima waa question ay isweydiiyaan culummadu waxaa laleeyahay afar shay waa inuu yeesho qaa'idku si waxa u yeesho kow quwa mashruuca waa inuu yeesho dadku waa inay u arkayaan inuu yahay nin sharciya nin aanan boobin xukunka nin aanan tuugahayn khaa'in ahayn waa inay ku arkaan waa kow quwa mashruuca labo waa inay kala dhex arkaan khibrad experience waa inay khibrad markay ku dhegeystaan khibrad aqoon basta fi lcilmi cilmi iyo iqnaac inaad leedahay qancin dadku markay ku dhegeystaan wallahi run baad sheegaysaa waa inaad qancin kartid saddex quwat lcijaab waa inay dadku kaa helaan waa inaad mucjab tahay waa inaad ummadda u tahay geesi dadku way cajab bay ku yihiin raalli bay ka yihiin rida waa muhiim arrinta ugu dambaysa waa maxay quwatu isaarati aliqtidaa waa inay dadku kugu daydaan waa inaad dadka markaa idhahdo hebel lacag muu xadin dadku ma xadayaan hebel si fiican buu shaqeeya dadku si fiican buu shaqeynayaan muxuu yidhi markaa matalan farmaajo kelmadu yidhi muxuu yidhi diyaarad 30,000 oo lagu raaci lahaa dollar baan iskaga dhaadhacay waxaan raacay diyaarad 200 oo dollar lagu raaci lahaa marka maxay kala tahay dadkii waxay ku abuuraysaa waxaas oo kale okay intaa waxaan kaga soo baxay halkuu qofku quwadiisa ka soo qaataa waa baaqaygii waxaanu imanaynaa qofka qaa'idkii waa inuu yeesho 7 sifo 7 sifo haddii laga waayo qaa'id maaha ku diinina maaha ku fikriyana maaha ku siyaasiyana maaha culummada adduunka oo dhan baa isku waafaqsan qur'aankay ku jirtaa xadiiskay ku jirtaa kutubta cilmiga ku jirtaa kuwa bulshada ku jirtaa kuwa maamul ku jirtaa waa inaan kala garana qaa'id iyo idaarina qaa'idku waxa weeyaan waa leadership waa hogaamiye ummadda dusha u jooga leadershipka waa kaa laakiin ninka idaariga iyo administrationku waa nin biro fadhiya shaqo loo dhiibay buu daba socdaa dadka buu xisaabiyaa maxaa maanta la qoray maxaa beri la qori doona waxbuu ka sheekeeyaa laakiin leadershipku saas maaha leadershipku dadku intuu meel u tilmaamo yirahdaa waan dhaqaaqaynaa beritoole leadershipku khudbada ma akhriyo cisho unbuu khudbadayaa waxaan tagaynaa meesha dhan heblaayo ina araa'ida laa yakdibu ahlahu nabigaa hogaamiyuhu dadkiisa been uma sheego gaajadu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa faqriga wuxuu ka hadlaa meesha aan joogno wuxuuna tilmaamaa halka aan tagayno inta aan sii maraynana uu sheegaa dhibaatooyinkeena sugayana uu sheegaa waxa ina hor yaalo dhanna uu sheegaa ma iga raali tihiin ha ila mara buu dhahdaa marka laakiin kuwa kale siyaasiyiinta munaafiqiinta mukhadiciinta dadka waale ma aha qaa'idku walidaalika ma usituun markuu shiinaha usoo baxay been uma sheegin maanta shiinaha wuxuu ku faanayo ninkaa baa sameeyey been uma sheegin george washington maraykanka been uma sheegin wixii buu qabtay de Gaulle faransiiska been uma sheegin wixii buu qabtay wahaakada maxaa markaa loo baahay ikhwani fillah qur'aanka iyo xadiisaanta markaa u fiirsaday iyo cilmiga toddoba sheegeen ta ugu horeysa maxay ninka leadershipkii waa qaasid meel buu ku socdaa ma soo noqnoqdo haddaad aragtid nin dhanoo leadership intuu dhaqaaqay soo noqda oo kula meel baan ku socdo laakiin waxay helay waxaan fahmayn waan daalay dadkii baan fahmi waayey ummaddan waa ummad dhahdhaana ummaddan waan caayad aragtid waxa ma yaqaana kaasi lianna qaasid maaha qasdiyaddu waa maxay wuxuu yihi filosofka reer galbeedka David Bratner wuxuu yihi sida quraanshada u shaqeyn quraanshadu habeenka dhaartu way shaqeysaa laakiin maxay u shaqeysaa inay noolaato siyaasigu uma shaqeeyo inuu noolaado siyaasigu wuxuu shaqeeyaa inuu wax nooleeyo sheekhu uma shaqeeyo inuu noolaado wuxuu u shaqeeyaa inuu ummadda nooleeyo mufakirku uma shaqeeyo inuu noolaado wuxuu u shaqeeyaa inuu ummadda nooleeyo walidaalika buu yidhi ninkaasi laa takun kanamli fi kadxiha sida quraanshada ha noqonin ee maxaad noqotaa waa inaad garatid waxaad u dadaalaysid arrinta labaad waxa weeye ninka qaa'idkii waa mubdic afkaar cusub buu keenaa ama iminka waxaad arkaysaa afkaartu way daashay afkaarta dhulka afrika laga hayo waa afkaar daashay afkaar murhaqa dhalaa cilmiga siyaaska afkaarta daashay afkaar mulhima maaha afkaar wax abuuraysa maaha marka qofka waxaa looga baahan inuu ibdaac keeno ummadaada fahan meesha lagala hadli kara fahan waxay u baahan tahayna fahan waxaa ka hadala waa ibdaac ta labaad waxa qaa'idku waa mubdic qaa'idku shalay iyo maanta iskuma eko shalay nasiib u ahaa dad baa koranaya waa hebel sheekh hebel shalay waxbuu noo sheegay maanta wax kaloo noo sheegaya dee waqtigaa socday waxaan shalay kuu sheegay haddaan kuu sheego waxa weeyaan waa istaagay biyo qurban noqday waa inaan wax cusub kuu sheego leanna waa socdaa qur-aankii wax ka fahmaya jidida xadiiskii wax jidida ka fahmaya cilmigii waxay sheegay horaan u socdaa halkii shalay ma joogo markaa 15 jir ahaa 15 sano kahor meeshaan joogay maanta ma joogo beritoola meeshii ma joogayo kulla yawmin huwa fii sha'nin
qofka mubdici waa sawa inaad hor u socotid weeyaan arrinta saddexaad waa maxay ashuura waa qof tashada quraanku muxuu yidhi nabiga muxuu ka yidhi washaawirhum fi lamri ka qayb geli amarka iyaale iyo kaalada wa amruhum shuura baynahum amarkooga si marka doorashada ka qayb geli ra'yiga ka qayb geli ka tagista ka qayb geli waa muhiim jiddan arrinta afraad waa muta'ammil khallaaqa qofka maaragtay hogaamiyihii waa nin saacado keligii hela bishii mar waa inaad keligaa noqdo nabigu muxuu jiray sanadkii 10 cisho ictikaaf jiray masjidka ka baxayn saxaabina lama hadlayn islaan lama hadlayn xaas lama hadlayn keligii buu meel isku soo oodayay ictikaaf ilaahay uu caabudayay waa cukuuf uu nisasaxayay mustaqbalkana uu arkayay marka maxaa loo sameeyay inuu qofku yeesho muta'ammil waqti uu naftiisa helo oo uu khallaaq noqdo afkaar abuuro waa inuu helo tashanaad waa inuu misdaaqiye yeesho ninka siyaasiga amba ninka sheekhi amba ninka daaciye misdaaqiyada maxay ikhwaani fillah ma hiya misdaaqiyya misdaaqiyadu wax weeyaan waxaad tiraahdo waxa ka hor imanaya samayn annaka wuxuu koranaya matal ninka siyaasiga anigu waan iskaga tagayaa xukunka uu ku noqon haddana amba wuxuu koranaya anigu waxa ma samayn laakiin ma samaynayo misdaaqiye yeelo misdaaqiyadu waa muhiim ولذلك بيدتك المسلمين waxay u baahan yihiin saduuq facuul banada nin runna sheega waxna action la falana uma baahno maartay qawaal kadub mid hadla oo beenala uma baahno lix ninka maartay qaa'idkii waa mustawcib dadka dhan baa soo siibada waa geed weyn oo la harsanayo in ma harsato مثلا tolkaan kuma harsanayo مثلا kuma harsanayo asxaabtaadu مثلا kuma harsanayo dadkaas jeceshiin ummadoo dhan baa ku harsanaysa man tuhib waman laa tuhib man takrah waman laa takrah kaad jeceshahay kaad jecleen lianna geedkan hoostiisa la isla leeyahay adiguna waxaa tahay ninkii geedka beerayey ee weyneynayey ugu dambeyn wax weeyaan wuxuu leeyahay quwad fikri ah ninka siyaasiga ah hogaamiyuhu wuxuu leeyahay maskax iyo maan fikriya oo siyaasi ah idan waxa weeye walaalayaal toddobadaa shay ninka hogaamiyaha ee yeesha hadduu yahay mucaarad iyo hadduu yahay muxaafid hadduu yahay sheekh iyo hadduu yahay mufakir waxa uu noqonayaa nin ummadiisa wax u tara marka waxaan ku warin lahaa madaxdeena geeska Afrika culumadeena geeska Afrika aqoonyahankeena geeska Afrika inaan maskaxiyan isbedelo sidii aan ahaan jirnay aan ka korno hadalka yare gaaban ha ka korno haweenaano noloshu waxay noo tarto khibradu waxay noo tarto adduunkan aan wada akhrisanay waxaan noo taro taasaan ku warin lahaa waxaan u rajaynayaa dalka Soomaaliya caafimaadka soo galaya inuu Ilaahay u barwaaqeeyo Soomaaliland dhibaato walba inuu Ilaahay ka ilaaliyo jamhuuriyadda Djibouti inuu agmariyo waxa balaayo masaa'ib socdo oo dhan Ethiopia deganaansheega inuu Ilaahay u dhowro subxaanahu wa ta'ala dadka halka degan waa dadkayga iyo walaalahay weeyaan Ilaahay dartii iyo qowmi ahaan iyo dhul ahaan waa meeshaan ka soo jeedo jacayl weyn baan u qabaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh